kulanti haboon daawadayaal halka naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaba halkan waxa idinkugu soo gudbinaa wararkii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwa ugu waaweyn qodobada muuqaalkan ku daawan doontaan waxa kamid noqonaya Ruushka oo riday 10 gantaal oo nooca balaastikada hadaba uu adeegsaday gantaaladaasi waxyeelada ka dhalatay ayaa halkan kugu soo gudbin doona waxa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doona Ruushka waxa uu gargaarkii ugu horeeyay uu gaarsiiyay Iran hadaba gargaarkaasi maxuu ka koobnaa muuqaalkan ayaad ku daawan doontaan hanjabaadii ugu cuslaa ayay jeedisay Iran iyadoo sidoo kale maanta gudaheeda ee laba duqeyn ay ka fulisay gudaha dalkaasi Israa'iil markaan waxay la kulmaysaa dharbaaxa kulul iyo sidoo kale hanjabaado culus oo kaga imaanaya dhanka iyo Iran Mareykanka ee sidoo kale waxa markaan uu la kulmaya cadaadis xooggan xogii u dambeeyay ayaa halkan idinkugu soo gudbin doona hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan baleelkana furso ay ku soo gaaraa muuqaalada kale xigaadii subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay laakiin oo saar soo gaar asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada aynu ku bilaabnay Iran ayaa markaan waxa ka soo yeeraya hanjabaado culus oo kulul kuwaasi oo ku aadan Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka Iran mar kale waxay ku hanjabtay inay weeraro bartilmaameed ay qaadi doonto hadii la beegsado xarumaheeda shidaalka xilli Israa'iil ay saakay weerar ay ku qaaday qaybo kamid magaalooyinka waaweyn ee Iran iyadoona Mareykanka uu sheegay in lala bartilmaameedsaday goobaha shidaalka ee Iran inkastoo wasaaradda difaaca ee dalkaasi war-saxaafadeed ay soo ay ku sheegtay in goobaha shidaalka xilligan ay yihiin kuwa badqaba balse ay ku hanjabtay in hadii la soo weeraro keedaheeda shidaalka ay qaadi doonto dagaalka madambeys kaasi oo socon doona muddo sanado isla markaana ay cashar lama ilaawaan ay u dhigi doonto Israa'iil sidoo kale Mareykanka waxa sidoo kale ay sheegtay in hadii la soo qaado weerar dhanka jasiiradda ee ugu muhiimsan uu yahay iyadoona Mareykanka uu sheegay in 90% laga dhoofiyo shidaalka jasiiradiisa ka ay weerareen Iran waxay sheegtay in hadii weerarkaasi mid la mid Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil labadooda midkood uu ka imaado ay iska difaaci doonto isla markaana weeraro culus ay markaana ay ku qaadi doonto markana hadii aan aadno Israa'iil waxa maanta gudaheeda laba weerar oo culus ee ka dhacay gudaha dalkaasi Israa'iil gaar ahaan magaalooyinkooda waaweyn iyadoona duqeymahaasi la soo warinayo in ay ka yimaadeen dhanka iyo Iran iyadoona loo adeegsaday gantaalada nooca balaastikada ee ku wada ridada dheereeya waxa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac inkastoo wali Israa'iil ay faahfaahin dhab aysan ka bixinin duqeymahaasi ee lala beegsaday gudaha dalkaasi Iran waxay xoojisay weerarada isdaba jooga ay ka fulinayso magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil iyadoo horey u bartilmaameysatay qaybo muhiim u ah sidoo kale saldhigyo ee ku yaala bariga dhexe sidoo kale qaybo kamid wadamada Khaliijka Carabta waxayna Iran horey ugu hanjabtay in goob kasta ay u aragto inuu muhiim u yahay ay la bartilmaameysan doonto duqeymaheeda iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale hubka nooca balaastikada Iran waxay horey u sheegtay inay la soo bixi doonto hubkeedii ugu qatarsanaa iyadoona horey u sheegtay in weeraradii sidoo kale dagaaladii ay fulisay ay ahaayeen oo kuwa jawaab celis balse xilligan wixii ka dambeeyay ay qaadi doonto dagaal culus hanjabaadaas markay timid kadib waxa muuqda in Iran hadalkaasi ay ka dhaweysay isla markaana Israa'iil ay si joogto u bartilmaameysanayso shalay sidoo kale sidaan oo kale waxa ay Iran ay bartilmaameysatay maraakiib shidaal uu leeyahay Mareykanka iyadoona halkaasi uu ka soo gaaray qasaare aad culus Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil xilligan waxay la kulmayaan qasaare aad u badan tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhaxeeya Israa'iil Mareykanka iyo sidoo kale Iran iyadoona dagaalkaasi daandansigiisa marka hore ay soo qaadeen Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil iyagoona bartilmaameysaday goobo muhiim u ah Iran isla markaana dagaalkii ugu horeeyay ay ku geeriyooday gudoomiyihii ugu sareeyay ee dalkaasi Iran Ayatollah Ali Khamenei iyo sidoo kale mas'uuliyiin sare Iran waxay markaasi ka dambeeyay waxay bilowday argudasho iyadoona sheegtay in xilligan wali aysan argudanin ay doonayso in hogaamiyaal sarsare oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu in ay dili doonto isla markaana ay wacday ku martay inay nolosha ay dhaafin doonto ayna ku buuxsan doonto booskii hogaamiyihii waxa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac inkastoo wali Israa'iil ay faahfaahin dhab aysan ka bixinin duqeymahaasi ee lala beegsaday gudaha dalkaasi Iran waxay xoojisay weerarada isdaba jooga ay ka fulinayso magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil iyadoo horey u bartilmaameysatay qaybo muhiim u ah sidoo kale saldhigyo ee ku yaala bariga dhexe sidoo kale qaybo kamid wadamada Khaliijka Carabta
waxayna Iiraan horey ugu hanjabtay in goob kasta ay u aragto inuu muhiim u yahay ay la bartilmaameedsan doonto duqeymaheeda iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale hubka nooca balaastikada. Iiraan waxay horey u sheegtay inay la soo bixi doonto hubkeedii ugu khatarsanaa iyadoona horey u sheegtay in weeraradii sidoo kale dagaaladii ay fulisay ay ahaayeen oo kuwa jawaab celis ah balse xilligan wixii ka dambeeyay ay qaadi doonto dagaal culus. Hanjabaadaas markii ay timid kadib waxaa muuqda in Iiraan hadalkaasi ay ka dhaweysay isla markaana Israa'iil ay si joogto ah u bartilmaameedsanayso. Shalay sidoo kale sidaan oo kale waxa ay Iiraan ay bartilmaameedsatay maraakiib shidaal uu leeyahay Mareykanka iyadoona halkaasi uu ka soo qasaare aad culus. Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil xilligan waxay la kulmayaan qasaare aad u badan tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhaxeeya Israa'iil Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan iyadoona dagaalkaasi daandaansigiisa marka hore ay soo qaadeen Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil iyagoona bartilmaameedsaday goobo muhiim u ahaa Iiraan isla markaana dagaalkii ugu horeeyay ay ku geeriyooday gudoomiyihii ugu sareeyay ee dalkaasi Iiraan Ayatollah Ali Khamenei iyo sidoo kale mas'uuliyiin sare. Iiraan waxay markaasi ka dambeeyay waxay bilowday argudasho iyadoona sheegtay in xilligan wali aysan argudanin ay doonayso in hogaamiyaal sarsare uu ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu in ay dili doonto isla markaana ay wacday ku martay inay nolosha ay dhaafin doonto ayna ku buuxsan doonto booskii hogaamiyihii ugu sareeyay ee dalkaasi Iiraan Ayatollah Ali. haddii aan aadno dhinaca Ruushkana Iiraan waxa uu gaarsiiyay gargaarkii ugu horeeyay oo caafimaadka la xiriira. Ruushka ayaa u diray in ka badan 13 tan oo gargaar caafimaad isagoona u diray dalkaasi Iiraan taasoo ka dhigaysa wadankii ugu horeeyay ee si rasmi ah uu gargaar u gaarsiiyay Tehran tan iyo markii uu bilowday dagaalka ee maalintiisii 14aad galay. Gargaarkan ayaa ka kooban daawooyin iyo qalab caafimaad waxaana diyaariyay wasaaradda arrimaha ee Ruushka waxaana loo marsiiyay dalka Azerbaijan si loogu wareejiyo dawladda Iiraan. diyaaradaha gaarka ee Ruushka ayaa qaaday sahaydane kana dajiyay Azerbaijan iyadoona talaabadan lagu fuliyay amar uu bixiyay madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin. Ruushkana waxa uu noqonayaa wadankii ugu horeeyay ee gargaar sidoo kale garab istaag u muujiyay Iiraan tan iyo markii uu bilowday dagaalkaasi iyadoo sidoo kale hogaamiyaha ee Kooriyada Waqooyi uu sidoo kale isna garab istaag xooggan u muujiyay Iiraan una sheegay inuu dhinaceeda ka soo barbar safanayo isla markaana weeraro aan kala joogsi lahayn uu ku qaadi doono Israa'iil iyo Mareykanka haddii labadaasi ay joojin waayaan weerarada ay ku qaadayaan gudaha dalka Iiraan. markaana haddii aan aadno Kooriyada Waqooyi ayaa riday ilaa 10 gantaal oo nooca balaastikada kuwaas ay ku duurtay badda Japan sida ay xaqiijiyeen ciidamada koonfurta ee Kooriya. Arrintan ayaa timid kadib markii waqooyiga Kooriya ka digeen cawaaqib xumo ka dhalan karta dawladda military ee sanadlaha ah oo ay si wadajir ah u sameeyaan Kooriyada Koonfureed iyo sidoo kale Mareykanka. waxaana arrintan ay noqotay mid lala yaabo kadib markii si lama filaan ah ee Kooriyada Waqooyi ay u riday 10 gantaal oo nooca balaastikada inkastoo aan la ogeyn khasaaraha dhabta ee ka dhashay ee gantaaladaasi. Iminkana waxaan u soo laabanaynaa wararkeeni ugu dambeeyay ee xaaladda Bariga Dhexe. dagaalka ka soconaya Bariga Dhexe waxa uu maanta galay maalinkiisii 14aad iyadoona dagaalku uu noqday mid sii socda isla markaana aanan u muuqanin kala joogsi inkastoo Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka ay dalbanayaan in dagaalka la soo afjaro. halka Iiraan dhinaceeda ay diidan tahay oo ay doonayso in dagaalka halkiisii uu ka sii socdo iyadoona markaan ay la soo bixayso hubkeedii ugu dambeeyay sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn. waxaana sidoo kale Iiraan ay ku guuleysatay inay soo rido diyaaradaha nooca shidaalka hawada ku siiya oo laga leeyahay Mareykanka iyo Israa'iil taasoo ay sameeyso shirkadda Pyongyang ay ku guuleysatay inay soo rido diyaaradahaasi. sidoo kale Iiraan ayaa u haqaltaagaysa inay sidoo kale goobo kala bartilmaameed u ahay cagta marsiiso wixii xoogay ku soo kordhay ay la xiriira xaaladda Bariga Dhexe iyo sidoo kale gantaalada ee laga riday ee Kooriyada Waqooyi qasaaraha ka dhashay iyo sidoo kale waxyaabihii ugu dambeeyay ee ku soo kordho inta idin soo gudbinay muuqaaladeena xiga ayaad ku daawan doontaan. haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhigan balaalkan furso ku soo gaara muuqaalada kale xiga. haddii aad subscribe inoo tahay muuqaalkeena share garay like inoo sarso gaar asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada.